laba waxyaabood aan rabaa bis inaan ka dhawaajiyo mid waaye magaca isbaaro waxay tahay iyo waxay tarto iyo waxay dib leedahay iyo waxay waa la isu sheegay sharaxaad kale uma baahan magaca isbaaraan rabaa in la bedelo oo la yiraaho qaadicu tariiq maanta wixii ka dambeeyo isbaaro lama yiraah qaadicu tariiqa la yiraah qaadicu tariiqna waxa uu leeyahay waa kii hadda muxuu ahaa sheekh Sobowna jeedinayay warqadii xigmada badnayd oo qodob walba ku yaalahay qodob shariicada islaamka waafaqsan oo ahayna waa tilmaantay ayadana meeshaasana dhurow noogu horeyso meeshaas intaas oo dhaqan gelino ayaa dhurow noogu dawladuna waa dadaashay go'aanka shalay golaha wasiirada Soomaaliya oo dhan loo soo saaray laakiin haddana waxa u malaysaa si gaar inuu cidaan u qosaynayo laakiin Soomaaliya oo dhan meel kasta ay arintaasi ay ku habboon tahay saxna ku tahay aan rabaa waa maasantiin aad iyo aad soo dhaweyntii iyo qadarintii iyo dhammaan waa ka mahad celinayaa odayaasha dhaqanka nabadoonnada duubabka waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa hawshaas inay sii wadaan waa bilaabatay ilaa meesha ugu dambayso oo cid walba Soomaali ahay ay Soomaali heshiis ay ku dhamaatana waa soconay baaqa cadale go'aanka cadale maahane baaqa cadale kuma ekaan doonto haddii alla yiraahdo Ilaahay idinkiis hoggaankeeda iyo wadadii lagu mari lahaa in adinka aad horseed u noqotaan waa rabaa intaas waxa ii wehelisa qodob kale ayadana ah colaada dhacday wiilalaa naga dhintay waa dhima lahayn waqtigooda meesha ahay aan leenahay laakiin colaadi waa la damiyay waa la joojiyay inta dhimanna waxaan aad ugu kalsoonahay inaad ku dadka waa arkay goonigooniyaan u arkay beeraha walaalaha ay wax dhaxmareenna waa arkay dad badan oo ka tirsan odayaashiina maxaa ku soo baxayna waa arkay aadan u aaminsanahay inay istaagtay anna inta dhimanna ay si sahlan ay ku dhamaan doonto laakiin markii ugu horeeyo cadale dhul kale iska dhaafay cadale dib heshiisiin lagu sameeyo ma aha dib heshiisiintu go'aanka ma dambaysan waa u baahan tahay dawladna waa u baahan tahay waxaan rabaa qaaticu tariiqan u bixinay isbaaro ma dhahnay qofkii qof dila magacuu doona iyo sifahuu doona ha ku dile waa dilaa isagana waa qaatil reer hebel ma ahan jufe hebelna ma ahan qof walaalkiisa oo Soomaali oo muslim ah qofkii dilay oo inta u qasday qoriga ku taagay xabad ku dhuftay magaciisa dilaa la yiraah waa qaatil waay qaatilna shariicadu wuxuu kale waa la ogaanayaa hadda aydeed inta laga jeedi walakum fil qasas hayatun ya ulil albab wardilkiina waa dhacay qasaasna horaan u soo sameeyna waa naqaanaa sida loo sameeyo in la sameey karo maanta ma ulil albaabki ma naga maqan yaas aqli u saaxibaha inta aqliga u saaxibkeed miyaa naga maqan naga ma maqno waa joognaa awoodii waa leenahay sharciyadii waa haysanaa dawladda u taagan waad maqlayseen dholalka la xoreeyay ilaa garsoorkii looga sameeynayo maxkamadaha ciidamada ka mas'uula garsoor